Somali Sudanes Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wix si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta Kalamaan fadlan subscribe saar YouTube-keena Kalamaan kalamaanay mawdka waa ku samirtaaye mayada waa ku dheregtaa murunkuna sadweeye isha milicsigeediyo maalin aragna waa dane war cabdulla waxaad ka tagtay ma hayno mana sugayno no mana maqne maareeyo sidee buu kursigu maskaxdiyo qalbiga uga miirmaya wargabooso adna waxaad ka tagtay xil jacaylka nugu mudan maal haddii aan siinno oon macawis iyo shaar dhar ku muunadayno maamuus u soorno marka socon nidhaahno tolow may iska tagayaa axmedheero adiin waliba ku tabtay mashaqa waagtan oo kale iyo muruga ciilkeed mas'uul meel xun kugu wadaa hadduumaan ku raace adeer waad nii ducaynayna in ilaahayna hagaajiye golihii wakiilada Soomaaliland shacabku soo doortay inta dimuqraadiyadda ka badatay ayay xaruntii golaha musaaraxa ka dhigteen oo maalin kasta way isku feedhaan aga oo gormay dimuqraadiyadda ay dagaal noqotay aryaha dagaal ma keenay masaalixa ka dhacdaaba lagu leeyahay heestadaas waa filahay fijirkiya igu faay war Faysal Cali Waraabo maalin dhawaad xigmad laga helay wuxuu yiri golaha wakiilada cusub ee la soo doortay waa niman dagaaladii iyo wixii dalka ka soo dhacay war ka hayn wayna soo degdegeeno xilligay golaha iman lahaayeen way ka soo hormareen waana idinka arka fudaydkiiyo waxay ku kacayaan iyo gacanta ka soo horreysa war Soomaaliland war kama haysaane gacan ka hadalkooda dimuqraadiyaddu ka mid yahay miisaaniyadda maanta ka dooday way ansixiyeen maxaa sheegaysaa dadku baa isku qasane war adaan war haynine baarlamaanka dawladda Jubbaland mid si xun u dhowri kara kuma jiro war qoranow tan jigjigana war naga si waraawo wiilku Mustafa Cagjar waa madaxweyne la aqoonsan yahay war ma haysiine cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday la yiri in Soomaaliya ay Afrika ka go'i doonto waxaana keenaya la yiri dildilaac ku imaan doona dhulka dhul badan oo Cafarta iyo Oromada leeyihiin uu raaci doona dhul xeebeedka Kenya ilaa Mozambique oo lagu daray Madagascar sidoo kale waxay ku dhigi doonaan badweynta Hindiya Soomaaliyana soo raaci doonaan waxaana samaysmi doona buuro waaweyn waxaana sidaas ku abuurmi doona qaaradda cusub oo la yiraahdo Soomaaliya waxaana halkaas idinkaga cad in dhulkii aan isku haysanay Ethiopia iyo badii aan isku haysanay Kenya ay sida ku dhamaan doonto Soomaaliyana ay noqon doonto qaarad iskeed madax bannaan sida Australia adduunkana ay ka noqon doonto qaaradda lixaad heebaad maanta oo dhan leediin warkan waa la degdegtiine kala go'an wuxuu dhacayaa la yiri 200 oo milyan oo sano kadib abdi kuuso waxaan ku weydiihaa wixii maanta dad noo sheegaysi malay bad ku jirle ma xawaajis noo tumeesi waraadahay 200 oo milyan oo sano kadib waxa dhacaya bini'aadan ma ogaa kare ma shaydaana u waxyooday horta yaa u sheegay adduunku inuu inta jirayo warnimeeyo anigu abdi kuus markuu sheegadaas bilaabay riya gaaban aan galay waxaana dhahay waxaad helaysiin Soomaaliya ka madax bannaan faragelinta jiiraanku ku haayo adoos warkii dhameeyay waxaan ogaaday inay been iyo huuha yihiin iyo waxaan wax ka jirin war shamsay kuliyaabi maayay waayahan Soomaalida soo jadkay ku riyoota warnimeeyo war ma haysiin adduun wax ka dhiban alla yaqaane hadda kor wadaadka alla sunna macallin Maxamed Sheekh Xasan asoo la hadlay dad oo rab inay wax bixiyaan waxa uu yiri haddii la xisaabiyo adduunka 4 sano ka dhiman qof kasta waxa haysta ha bixiyo nin dadka ula hadlay kamid ah waxa uu weydiiyay sheekho haddii adduunka 4 sano ka dhiman tahay tabaqaan 4 biyaanada haddii aad ismiis bilowda xaqad u wada markaas waxa uu jawaabay waxaas waa iska adduunye kana waxaad haysiin hora waxa loo yiri nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban war culumada in lagu afnaqa ma fiicne sheekha warkiisa in la yeelay ahayd warnimiya kala dhawaaytay dagaalkii guraalka dhiyay niman badan oo bilaandilka furiya jiraan si in shalta baan ama silroogan war waxa la yiri nin walo waxaad fashay filo ku qawati khadir alla wala qaata aga war adigu niyaho baroor badanida war ma haysiine doorashadii Soomaaliya lagu heshiiyay 15 bisha bilaabato si sax ay maanta u bilaabatay madaxweynihii ma la doorto war yaa loo doortay tiitiinka dadka dhibaay jidire walku haagay warnimaha ma diyaas baran loo doortay madaxweyne oo banaadida ma keentaan hadane war qurba joogta hadayrin dadkay quudu jireen baryihii la qaxay war
kuwa fiican weeye kuwaas ra'iisul wasaaraha qorax jawaanka dhigaa miyuu yidhi war dad riya ku jiraatiin madaxweyne lama gaarina maanta waxaa la doortay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaana ku soo baxay nin la yidhaha muuse geelle yuusuf ma dadkaa maxkamad la geynaya ma maxamuud geelle yuusuf uu la dhashay war ma mucaaradkaa wata mase muxaafidka war waa dhexdhexaad hadduu doorashaba qabanaayo war tumayshan dibili doorashadii xildhibaanada bilaawto la isku ogaayey may ata guddiga gudoomilan dooradiina ilmagaadka muuqdaa lagu geedigalshaha la yidhi horaan waxaa loo yidhi mira gacantaada ku jiro mira gees saaro ma loo daadiyo astaanta qaranka yaa la bedelin miyaa ka wadaa waa wadani dhaba awowi la gumiyaadan dhinacana u soconin war qorana ma waxaad rabtaa dadka sida axmed madoobe inay mucaarad ku jiraan war gudoomiyihii guddiga khilaafaadka isaga ma la doortay war ninkii xogayaha guddiga doorashooyinka galmudug ahaa ee kaligiis gudoomiyaha guddiga xilka ka qaaday tilaabo ma laga qaaday war xogayaha gudoomiyaha xilka ka qaaday ma qorqoraa ka dambeeya mase gacal war kolayba haddaan wax laga qaban waa hawl la wada qabo aryaadhaha xaad isu daalihaysiin ma hayo mana sugayo imana maqne miyaan laydin dhihin war cabdulla waa boni dhageelaba wuxuu yidhi ceeluma qodniyo xaalka nagu qalalab weeyaan waryoona waxaan dhihi lahaa laba dhagax laf dhuuxlana agtaaldaa indhici meehe maanta ay ugu dhowdahay guushu maanta la dhegaysayno intii uusan dhiman magaca guudan dhedhamaraacu dhaxalkii awowgayna dhigay qarashir dhaaf samsoy runtaa laf dhuuleeyona shiidashay waa isla waayi war shiidku dalka dhan oo ka jira ahmid ayow naga aamus abwaanqaasinna wuxuu yidhi allah u naxariistee hal libax dharqadoyo cad iyo dhiigba kayn leeyey ha u dhuran dhurwaagii laftuu dhuuxay eersaday war abwaanguhaad cabdigahirba wuxuu yidhi goraygii dhashii buu ka tegay guubiiska ahaaye kalalkaama guurin halkan u guud madow yahay war ma haysiina maamulka gobolka banaadir waxay dhaheen binaanbaha fasaha uu yaleeyina madaxweynaha la taageero ma yidhahdeen war amniga gobolka banaadir ciyaal weerada dadka weeraray wax ma ka qaban waayeen waradhaaya warka hala waalanine maamulka gobolka banaadir waxay dhaheen inta doorashadu ka dhacayso cidna ma hoos tagno nalamana xukumo marka waxaana sidhi goormaa banaadir somalilan noqotay war saw xildhibaanada somalilan banaadir laguma doorto aryaadhaha xaad ula yaabaysin intaan daqar ahayn waa la isku daartaa ha la yidhi war waxay ku dhaheen sida maamul goboleedyada kale noqonaynaa dariskaaga ku dayo ama ku diinaa la yidhi horaa waxaa loo yidhi facaaga wuxuu falafal fanjibba kugu dhace kow war muxuu yidhi war hadalka gobolka banaadir waxaan u fahmay intay doorashadu dhacayso madaxweynahan ka amar qaadanaynaa war majaab ku jiraad ka maqashay war xafladii gobolka banaadir waxaa ugu yaab badnayd nin weyn oo bidaar loo qaybinayay sawirrada madaxweynaha wuxuu yidhi gurigii uusan surrayn sawirka madaxweynuhu iyo gobolka banaadir ku yaalla waa in ganaax iyo ciqaab la isugu daraa war dhab maahana waa madax martay aaga war madaxweynuhu muddoxileedkiisa hadduu dhammaaday miyaa dadka lagu ganaaxi gambaal nin gaaraa guntada war waa tii layidhi guri sawirra ku dhegan yihiin malaa'igtu sooma gashee maxaana la ku ganaaxaya warna miyaw laanka madaxweynaha masawarjay guryaha dhown halka dhajiyo ari reer awgareen waa bahaay ay ku haayi war madaxweynaha haddii sawirkiisa roob la iska fujiyey isna ka harsaday oo kii aadan cadda iska fujiyey xaggee u wadan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how maslaxadiid yaa magriilow musuq jaaway ku meel maaran maslaxadiid yaa magriilow musuq jaaway ku meel maaran warwar ma haysaana maanta magaalada hargeysa geeri xanuun badan baa ka dhacday gabar la odhan jiray faadumo cismaan aadan oo meherkii arooskeeda loo fadhiyo ayaa mawtalfajir ku soo boodoo geeriyootay farxaddii nikaaxee loo fadhiyeyna murugay isku beddeshay aryaa gabooso waa geeri xanuun jawa laakiin waxaa la yidhi ilaahay ma naxee waa naxariistaa war gabadha allah u naxariisto ehelkiina allah ka samir siiyo wiilkiina beddel khayr qaba ilaahay xaydila xaraarag noo leeya waaye waraawowodlagub waxaa la yidhi kenyaatigii waxay barakicinayaan soomaalidii degganeed gobolka mirow ee jaadka laga keeni jirtay waxayna abbahoodla cadaabku ka xanaaqsan yihiin jaadka laga gadan waayey oo hadda kenya qaad laga gata ama qaha miyay ka maraysaa adigu ma qaadka ka gadataan ama ka tagtaan maxaa idaanka dhoobay aga war soomaalida weligood bay kenya degganaayeen dhulkayna leeyihiin warnimayow kor isku khaatii kibir waaba kol jaba war lagama qaadanin ayagaa dulmiyey warwar maysiina buntland haddaan war idinka siiyo aaranjaan iyo nabad iyo nololay u kala jabtaa la yidhi taageerayaasha madaxweyne denina boqor burhaan waxay ku eedaynayaan inuu rabo xildhibaanada gobolka bari lagu dooranayo inay noqdaan dad madaxweyne farmaajo codka siiya marka waxaa la yidhi khilaafku waa sii kororiyo deni iyo dayaana ka weynaa boowi buntland maxaa ka afaariyey aryaadhaha xilli doorashaa la joogaah ma muggaanoo kalea khilaaf la abuuraa yaa ku dooraha mugga adiga hotaa lala qayla dhaansha war doorasho qof iyo cod hal la qabto maalin kasta dalka war doorasho iyo khilaaf meel ma kale sidaan doorashada aawda qayli badan khamsar waxaad la qaaqaaqay dhinacanoo la isku raaco war soomaaliya dantiina garta dalka yaale awal dalka yaale war dumisnimada hal la ilaaliyo